السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا عشر عصب وينكو برندونو بايثون ليست وحيهي يسيد الله استعماله بايثون مركا ليستيكو وحاويان مركا دربتو إناد multiple items أما items كلا دوان آد كو سيف غريساتو single variable كلية مركا مقاعية ضد بدل مقاعية إيان رابا مثل إنا سيف غريو أما products مقاعية إنا سيف غريو وحن استعماليا list marka waa collection waxaan isticmaali karnaa tuple oo baran doono iyo dictionary laakiin simika waxaan baranaynaa listiga waxaa muhiim ah inaad ogaataan inuu yahay ordered marka midba markaad ku darto way kala horeeyaan number 1 2 3 4 ayuu ku leeyahay listigu waa changeable waa la bedeli karaa oo shaygii aad ku dartay waad ka bedeli kartaa ama waad ka delete gareyn kartaa ama wax kale aad ku bedeli kartaa wuxuu kaloo list ku ogol yahay markaa inaad duplicate values aad geliso oo laba magac isku mid ah ayaad gelin kartaa listiga wuxuu leeyahay index waa numbers ayuu leeyahay numberka marka aad rabto inaad isticmaasho waxaad isticmaalaysaa square bracketka iyo index numberka ayaad gelinaysaa wuxuu ka bilowdaa 0 oon arki doonaa indexkiisu waa 0 laakiinse marka horta listiga la samaynayo ama la create garaynayo waxaa la isticmaalaa square bracketska halkan waxaan ku haysanaa list of names marka square bracketkaas listiga aynu furnay ka bacdina items kan ayaa ku jira maxamed waa item comma deeqa waa item maryam waa item marka comma ayaa separate garaynaya itemska ku jira listiga index numberkana dusha markaynu positive ka eegno wuxuu ka bilaabanayaa 0 waa sidii string aan kusoo barno kale 0 1 2 3 4 saas u soconaya haddii negative kaad kasoo bilowdana wuxuu ka bilaabanayaa -1 -2 -3 -4 -5 sidaas ku soconaya markaa oo item kasta oo listiga ku jira index number ayuu leeyahay imika waxaynu arki doonaa tusaalooyin ku saabsan listiga iyo sida loo isticmaalo okay listiga markaynu samayno waxaynu isticmaalaynaa markaa square bracketska waxaan leenahay haddaynu doono my list is equal to square bracketka ka bacdi listiga waxaad doontaad gelin kartaa haddaad doonto string ayaad gelin kartaa waxaad kaloo gelin kartaa integer waxaynu gelin karnaa float waxaynu kaloo gelin karnaa haddaynu rabno list kale ayaynu sii dhex gelin karnaa boolean baynu gelin karnaa marka data typeska aynu soo barano dhan ayaan listiga gelin karnaa taasaa muhiim in la fahmo waxaa kaloo muhiim in la fahmo markaa listigu inuu leeyahay index haddaynu rabno in hadda bookka print garayno waxaan leeyahay print my list kabacdi index 0 waxaanu print garaynay markaa book ayuu print garaynayaa haddaynu dhahno -1na wuxuu print garaynayaa false oo waxaanu kasoo bilaabay marka indexka false ayuu print gareeyey haddii rabno listiga gudaha ku jira in print garayno waxaan oran karnaa waxa weeyaan waa 0 1 2 3 index 3 marka 0 index 3 wuxuu noo soo print gareeyay marka listigaas maadaama uu yahay list haddaynu rabno first item ama number 1 kaas inaynu print garayno square bracket kale aynu isticmaalayno waxaan leenahay 0 wuxuu noo print gareeyay 1 marka listigii ayaynu marka hore soo qaadanay ka bacdina waxaanu print garaynay itemkii ugu horreeyay listiga ayaynu print garaynay matalan haddii aynu rabno listiga inaynu wax ka bedelno book ayaynu rabno inaynu table ka dhigno waxaanu isticmaalaynaa marka hore listiga magaciisii my list ka bacdina indexka marka index 0 waa book hadda waxaanu u bedelaynaa table hadaynu listiga print garaynay marka print my list waxaynu arkaynaa markaa listigii meeshu marka hore book itemka ugu horreeyay bookka ahaa inuu noqday table haddii aynu rabno inaynu list samaysano numbers ah intaynu markaa nambaro badan haddii rabno inaan samaysano numbers ilaa 100 oo kale aan raba inaan sameeyo marka meeshaan ka oran lahaa 1,2,3 waqti dheer iyo effort badan baa kaa galaya waxaa la isticmaalaa marka range command ama function la dhaho range marka waxaad oranaysaa list range
horta marka hore haddaynu dhahno range keliya haddaynu isticmaalno si aad u aragtaan rangigu isagoo marka hore listigu kuma siinayo marka haddaynu dhahno range waxaad siisaa 100 number aynu printerkeeno print numbers waxaad arki doontaan haddaynu kelin garayno waxaad arki doontaan markaa inuu ina siiyey range ayuu noo soo celiyay uu leeyahay 0 ilaa 100 number ayaan ku samayn karaa haddaad rabto laakiin inaad list u bedesho marka waxaad oranaysaa list ayaad gelinaysaa halkan markaasuu ku siinaya marka list oo ka bilaabanaya 0 ilaa 99 haddaynu print dhahno 0 ilaa 99 ayuuna siinayaa haddaynu dhahno waxaan rabnaa matalan listiga inuu ka bilowdo from 0 to 1 to 20 matalan waxayna siinayaa markaa 0 ilaa 19 ayuuna siinayaa marka last number mar walba kuma jiro waxaa la dhahaa non inclusive haddaynu dhahno markaa from 0 ilaa 99 laakiinse waxaad ka boodaa mar walba 2 steps baa lahaa waxayna siinaya markaa 0 2 halkaasuu markaa kusii soconayaa waxayna siinaya nambarada dhabanka oo dhan ama even numberska laga bilaabo 0 ilaa 18 haddaan rabno kinsigana ama odd numberskana matalan 1 baynu ka bilaabaynaa 2 baynu boodaynaa mar kasta kabacdi wuxuu ina siinayaa markaa 1 3 5 6 intaasuu ina siinayaa waxaan kaloo odhan karnaa waxaadna siisaa list ka bilow -2 ilaa 4 markaa -2 -3 ilaa markaa 3 ayuu soconayaa haddii aynu rabno inaan dib u soconaan waxaan odhan karnaa list ka bilowda matalan 4 ilaa -1 waxaadna u socotaa -1 xagga dambe haddaynu run dhahno wuxuu ka bilaabanayaa 4 3 2 1 ilaa 0 halkaa waxaynu ku baranay markaa rangiga iyo wuxuu yahay markan waxaan baranaynaa wax la dhaho slicingka sidii aan kusoo baranay stringka qaybo ka mida listiga ayaad soo qaadan kartaa marka waxaynu hore u baranay haddaynu rabno inaynu markaa print garayno colorka matalan yellow oo kale waxaynu baranay inaynu indexka isticmaalayno colors yellow indexkii waa 012 haddaynu dhahno 2 wuxuu print garaynayaa yellow laakiin rabno inaan soo qaada matalan yellow ilaa blue waxaynu isticmaalaynaa slicingka aynu soo baranay yellow wuxuu ka bilowdaa 2 ilaa iyo waxaan odhanaynaa markaa 2 3 4 markaynu dhahnaa 5 waxaanu soo qaadanay yellow green iyo blue sidii aan kusoo baranay stringana waxaad isticmaali kartaa negative index ayaa la isticmaali karaa oo haddii aynu rabno marka inaynu ka bilowno minus greenkaas inagoo negative isticmaalayna waxa weeyaan -4 ilaa waxaynu odhan karnaa waxaad socotaa -1 waxaanu isticmaal negative indexka aynu isticmaalnay sidii aynu string kusoo aragnay haddaynu rabno first 3 items waxaynu odhan karnaa ka bilow 0 automatically haddayna numberka halkan ku qorin begin numberka haddiina ku qorin wuxuu ka bilaabanayaa 0 ilaa 3 ayuu soconayaa marka wuxuuna siinayaa saddexda number ee ugu horeeya haddii aynu dhahnona -3 ilaa iyo dhammaadkan wuxuuna siinayaa saddexda number ee ugu dambeeya marka waa sidaan index string kusoo baranay unbuu la mid yahay slicingku haddii aan rabno qayb ka mida listigan wax ka bedelnana matalan orange iyo yellow marka orange wuxuu ka bilowdaa 1 haddaynu dhahno meeshan print ka nidhi haddaynu dhahno matalan colors 1 ilaa 3 marka wuxuu inoo soo qaadayaa 1 iyo 2 yellow iyo orange inoo soo qaadayaa waxaan odhanaynaa waxaad ku bedeshaa black white aynu ku bedelnay kabacdi haddaynu print garayno waxaa inoo soo baxay markaa red meeshii orangeed wuxuu ku bedelay black yellowgiina white ayuu ku bedelay kabacdi green blue saasuu sii socday haddii aynu dhaha matalan haddaan rabnaa qayb ka mida delete garayno greenkaas iyo bluegaas waxaynu odhan karnaa del colors kabacdi
greenka waxa weeyaan 0 1 2 3 ayuu ka bilaabanayaa 3 4 5 inta haddaynu delete garayno marka greenkaas iyo bluegaas ayuu ka delete garaynayaa halkaasaan ka aragnaa marka in greenkii iyo bluegiiba ay ka baxeen listiga haddii aan rabno listiga intuu ka kooban yahay inta item waxaynu odhanaynaa print len kabacdi colors listiga waxaynoo sheegay ka kooban yahay 7 items marka len waxaynoo sheegayaa inta item uu listigu ka kooban yahay qaybtan waxaynu ku baranaynaa waxa la dhaho list unpacking listigii ayaad markaa ka soo qaadanaysaa macluumaadka halkan listigan wuxuu ka kooban yahay 3 item oo waxaan odhan karnaa axmed iyo magaaladu degan yahay maka iyo da'diis hal mar ayaan rabnaa inaan soo wada qaadano waxaan samaynaynaa marka list unpacking waxaan odhan karnaa name comma city comma age is info halkaas muxuu inooga soo qaadayna macluumaadkii ayuu unpacking ku samaynayaa haddaan hadda print garayno print name print age waxaa marka hore waa sidii u kala hore aan u gelino name name city iyo age okay marka waxaan odhanaynaa name sida printka muhiim ah sidii loo kala horreysiinay laakiinse markaad assignmentka aad samaynayso waa inaad u kala horreysaa siday usoo kala horreeyaan nameka ugu horreeya markaynu halka nameka ugu horreeyaa city baa ku xiga ka bacdi age kaara haddaan dhahno unpacking aynu ku samaynay listigii waxaa muhiim marka listiga inta kugu jirta iyo inta variable halkan aad gelisay inay isku mid yihiin haddaynu hadda age ka tagno error ayaa soo baxaya too many values to unpack ayuu odhanayaa expected to marka halkan maadaama listiganu ka kooban yahay 3 item waa inaynu 3 variable xaggan gelinaa markaynu unpacking samaynayno waxaan kaloo isticmaali karnaa haddaan rabno labada number ugu horreeya inaan soo qaadano inta kalena aan list kale gashano waxaynu odhan karnaa num1 for example is num1 comma num2 comma rest is equal to numbers halkan wuxuu samaynayaa number 3gii ayuu num1 gelinayaa 5 kana num5 inta kale wuxuu ka dhigayaa list marka restigaas waa inaynu asterisk halkaa gelinaa haddii kale shaqayn maayo restiga waxaad doontaad u bixin kartaa haddaad rabto number 3 num3 waad odhan kartaa waa variable laakiinse waxaa muhiima asterixkaas haddaynu print garayno waxaad arki doontaan print num1 2 iyo rest inta haddaynu garayno markaa 3gii wuxuu noqday num1 5 num2 intii kalena list ayuu ka dhigay haddaynu rabno last number inaynu horta restigaas haddaan ka tagnaa iminka errorkii baa inoo soo baxaya oo marka wuxuu leeyahay too many values to unpack haddii markaynu rabno restiga inaynu dhexda gelino first number last number keliya soo qaadano waxaynu odhan karnaa num2 restiga haddaynu xaggaa gudaha gelino oon markaa asterix halkan ka dhigno num1 oo 3 ah iyo num2 oo 8 noqonaya kabacdi inta kalena wuxuu gelayaa waxay gelayaan listigaas marka 3 8 inta soo hadhan listiga marka asterix wuxuu ku ogolaanayaa inaad markaa inta soo hadhayso intaad group garayso aad ku assign garayso hal variable waxa kaloo muhiim ah haddaynu rabno inaynu isku darno nambaradan oo dhan waxaan odhanaynaa print sum numbers marka sum wuxuu isku darayaa nambaradoo dhan haddaynu ran garayno 58 ay noqdeen nambarka ugu weyn haddaynu rabnana waxaanu isticmaalaynaa max ka ugu yar haddaynu rabnana min haddaynu ran garayno 58 8 baa ugu weyn 2 baa ugu yar haddana waxaan baranaynaa list methods oo ah qayb muhiim ah oo ah sida markaa listigii aad u operate garayn lahayd ama wax ugu dari lahayd ama wax uga saari lahayd ayaynu baranaynaa okay marka ugu horeysa haddaynu bilowno list names
oo empty ah list maranaya halka ka bilowna waxaan rabnaa inaan magac gelino names dot append listiga hadda waxaan ku darnay Maryam haddaan dhahno haddana append magac saddexaad aynu ku darno laba magac oo kale marka append mar walba listiga wuxuu ku darayaa last item ayuu ka dhigayaa markaad append dhahdo haddaynu dhahno print names saddex magac ayaynu ku darnay magac ayaan rabaa hadda inaan ku daro ka ugu horeeya inaan ka dhigo index 0gaas Maryam inaan magac kale ugu bedelo Maryamna marka uu index 1 noqdo waxaanu isticmaalaynaa insert names dot insert indexkii baad marka hore sheegaysa xaggeed rabta inaad numberka geliso 0 baynu nidhi comma magacii aynu gelinaynay hadaynu dhahno Cusmaan aan markaa print garayno waxaynu arki doonaa inaynu Cusmaan gelinay index 0 haddii aan rabno dhexda inaanu gelino markaa isagana insertigaas magaca kale aynu dhexda gelinaynaa hadaynu dhahno insert magaca index 2 waxaad gelisaa Cusmaan marka haddaynu print garayno waxaynu arkaynaa Cusmaan inuu index 2 ku jiro horeyna wuxuu ugu jiray 0 halkaan waxaan ka arkaynaa markaa inuu duplicate ogol yahay listigu hadaynu marka print yaashan comment garayno waxaan rabnaa inaynu tirino imse Cusmaan ayaa ku jira listiga waxaan odhanaynaa count names dot count marka functionkaasaan isticmaalaynaa countiga waa inuuna Cusmaan siduu u qorayaan u qornaa waa case sensitive Cusmaan hadaynu markaa print dhahno run kabacdi laba mar ayuu Cusmaan ku jiraa hadaynu rabno markaa inaynu mid ka tuurno waxaan horta ogaanaynaa indexku ku jira Cusmaan indexka ugu horeeya waxaanu leenahay I haddaynu iska dhahno is equal to names dot index Cusmaan waxaanu ogaanaynaa indexku ku jiro haddaynu hadda print dhahno indexkaas I ka ugu horeeya inuu siinayo wuxuu odhanayaa 0 ayuu ku jiraa marka haddaan dhaho laba habaynu u delete garayn karnaa waxaan odhan karnaa pop names dot pop haddaynu pop keliya dhahna marka hore wuxuu delete garaynayaa magaca ugu dambeeya ama itemka ugu dambeeya listiga hadaynu dhahno print names intayna popka odhana aynu print garayno nameskii haddana waxaynu arkaynaa markaa Axmed ayaa ugu dambeeyey Axmed ayuu ka delete garay laakiinse haddaynu dhahno names dot pop oo markaa indexna markaa halkaa gelino hadaynu doono 0 baan gelin karnaa Cusmaan buu print garaynayaa ama waxaynu gelin karnaa I oo marka hore Cusmaan inoo haysay marka haddaynu dhahno I Cusmaan magaca ugu horeeya Cusmaan ayuu markaa delete garaynayaa marka Cusmaan oo number 1 ahaa ayaa ka baxay kii dhexdaha laakiin ku jira waxaanu kaloo samayn karnaa del ayaanu isticmaali karnaa del names iyo indexka rabta inaad ka tuurto laakiin delka waxaa fiican in la iska ilaaliyo waayo haddaad ilowdo inaad indexka u sheegto listigo dhan ayuu delete garaynayaa marka haddaynu dhahno 1 oo markaa aynu printer garayno waxaynu arkaynaa wuxuu print gareeyey Cusmaankii labaad ee dhexda ku jira oo index 1 ahaa waxaan kaloo isticmaali karnaa remove markaynu delete garaynayno item listiga ka delete garaynayno waxaan odhan karnaa names dot remove print waxaan ugu soo hadhay hal magac oo keliya Cali clear haddaynu isticmaalnana listigo dhan ayuu markaa empty ka dhigay listiga weli wuu jiraa oo maynaa delete garayn laakiinse empty ayaynu ka dhignay marka haddaynu dhahno names
not clear marka listiga aynu clear garaynay ama empty ka dhignay hadaynu print names waxay noo soo haray marka list maran ama empty list ayaa noo soo haray like del hadaynu isticmaalno waxaanu marka delete garay listigii oo dhan oo memory-ga waynu ka delete garaynay hadaynu isdhahno print waxaanu marka wax soo baxay error then dhahno run wuxuu leeyahay names is not defined variable-ka names ma jiro sababtoo ah memory-ga waynu ka delete garaynay qaybta waxaan ku baranaynaa sida listiga loo koobiyeeyo waxaan oran karnaa new numbers is equal to numbers dot copy habkaasoo loo koobiyeyn karaa hadaynu dhahno print new numbers waxaad arkaysaa inuu koobiyey waxaan kaloo isticmaali karnaa slicing-kii waxaan oran karnaa numbers wuxuu la mid yahay square bracket colon marka nambarada intuu soo qaatay ku save garaynayaa new numbers labada hab ayaa u fiicnaad u koobiyeysa listiga haddii laakiinse aad dhahdo new numbers is equal to numbers copy ma aha labada list marka waa isku mid haddaynu iminka matalan listiga new numbers aynu number kale ku darro new numbers dot append haddaynu dhahno number 8 waxaynu arki doonaa number 8 inuu ku daray numberskiina print numbers iyo print new numbers labada listina isku mid waxaad ku arki doontaa haddaynu hadda run dhahno 8kii labadiiba wuu ku daray marka assignment haddaad isticmaasho copy ma aha labada list isku mid ayaad ka dhigaysaa haddaad mid bedesho ka kale ayuu saameyn ku yeelanayaa taasina waa muhiim in la fahmo qaybta waxaan ku baranaynaa listiga reverse sida loogu sameeyo hadaynu dhahno systems dot reverse marka kii ugu dambeeya ayuu kow ka dhigaya kii labaad ayuu kii ku xiga ayuu laba ka dhigaya saasuu markaa u soconaya haddaynu dhahno marka print systems waxaynu arkaynaa linux ay hadda ugu horeeya waxaa ku xiga macOS waxaa ku xiga windows mar labaad reverse haddaan ku samaynana sidiisii hore ayuu kusoo noqonaya marka linux uu ka bilaabanaya dib ayuu windows ugu soo noqday qaybtan waxaan ku baranaynaa sortingka haddaynu rabno markaa inaynu kala horreysiino xarfaha waxaan isticmaali karnaa laba command sorted baynu marka hore isticmaalaynaa sorted بعد waxaan dhexgelinaynaa vowels sorted markaa haddaynu sidaa u isticmaalno wuxuu u kala horeysiinayaa wax la dhaho ascending waa from a to z ama from 0 to number ka wan yahay marka a e I saas vowelska u kala horeeyaan haddaynu laakiinse rabno inaynu from z to a ka dhigno waxaan odhanaynaa reverse true marka from u o I saas u soconaya oo a ayaa ugu dambeeya waxaa markaa muhiim inaynu fahmno sorted listigii hore waxba kama bedelayo haddaynu dhahno print original listigi waa sidiisii vowels haddaynu dhahno waa sidiisii waxba kamuusa bedelin command kalaa jira markaa isna aanu isticmaali karno sortingka kaas waxa weeyaan markaa haddaynu dhahno vowels dot sort kaasi markaa original listigii wuu bedelayaa oo hadda ascending ayuu u sort garaynayaa from a to z then dhahno print from a to z haddaynu rabno from z to a na waxaan odhanaynaa reverse is true markaa u buu ka bilaabanayaa saan hore idinku sheegay faraqa u dhexeeya labadooda waxa weeyaan sorted original listigii ma bedelayo laakiinse sort original listiguu bedelaya waa inaga markaan bered karayno vowelskii aad arkayso inuu bedelay halkaasaynu ku gabagabeynaynaa insha allah waa inoo casharka dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu